بسم الله الرحمن الرحيم. mahad kusoo dhawa marka ugu horeysa warbaahinta wardoon. وعليكم السلام وندوحي ولا الماسني. mahad waa wiil Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway oo Soomaalida Norway aad u taqaan iyo waliba ajaanibta dalkan. mahad wuxuu caan ku yahay kiis ku saabsan sharcigiisa oo dowladda Norway ay kala noqotay baasaboorka wadankan. wuxuu fuulay maxkamad arintiisu aad bay u dheereed waa marka waxaan jeclaan lahayn mahad inuu wax yar noo guud maro dacwadiisa halkay ku dambeysay iyo hadda halka ay marayso. bismillaahi raxmaani raxiim. mar labaad walaal maasanid wargeyska wardoon waxaa leeyahay waad maasantihiin aad baad u maasantihiin si sharafta leh aad maanta fursad ay siiseen si aan xog ula qaybtamo walaalahayga Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda iyo dalka Norway ku nool. waad ogtahay walaal muddo 2 sano iyo badh ka kooban ayay dacwadaydu socotaa. dacwadaas oo ah in dad aniga iga mid oo walaalahay oo Soomaaliya ay iga been abuurteen dawladda Norway ay ugu direen laakiin maxay ahayd dacwadii way sii socotay waan istifaacay ilaa iyo heer maxkamadeed bishii hadda la soo mootay ama la soo dhaafay 12 ilaa iyo 24 ayay dacwadu socotay 4 maalmood ah. dacwadaasi si xaq darro ah la igu xukumay maadaama oo aan anigu ahaa anigii lawyerkaygu aan ahayn dadka kaliya ay xog concrete evidence waxa lagu yiraahdo qaraad amba maxaa la yiraahdaa xog xaliban oo transparency iyo miiska soo saaray aynu ahayn laakiin taasoo la dhowrayo sumcadda dalka in si gardarro ah la igu xukumo ayay noqotay oo labada midkii fudud mahad baa la yiri mahad kurka la jaray laakiin racfaan bangeedka ka qaatay qodobka ay cugskageenna waxa weeye yar aan wada shaqeyno oo hanti iyo maal wada isla leenahay oo dalka Djibouti iyo Ethiopia logistic baawur aan ka wada shaqeyno baawurta trailerka ninkaas la yiri waad wada dhalateen 2 nin baan wada shaqeynaa mid iyaga kamid ay dhaheen waad wada dhalateen maadaama ay ka soo xadeen kaarkii uu dhigay markii ay baawurta uga dirnay Europe ninkaasi shirkadii baawurka siisay ayaa si tuuga u siisay dawladda Norway xogtaas iyaguna xaq u lahayn laakiin hasaahate halkiiba ka sii anba qaadeen kadibna meelaha kamida maxay ahayd dawladaha geeska Afrika ayay ka soo xadeen baasaboorkii ninkaas anigoona hatta xaga ku sii gudi karin oo maadaama hadda investigation uu ka socdo ninkii baasaboorka lahaasi uu dacwada u furtay halkaas iyo Djibouti laakiin kadib markaan guul daraystay waa ka lawyerkaygu isla usbuucaas duulay dalkii Djibouti aaday ninkii la igu wanjalay la dhahay walaalka qoyskiisii iyo qaraabadiisii uu baasaboorkiisii iyo identity cardkoogii uu ka soo ururiyay dhamaantood iyo warqad xog ah oo dawladda Djibouti ay kaga soo jawaabayso ay xaqiijinayso dadkaasi inay ehel yihiin tiibaanu keenay markaasaan dawladda Norway hadda aan u dirnay oo dhahnay qodobkaad cugskateen ee mahad ka qaadeen baasaboorka Norwejiga wax sal maaha waa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan leh mahad xuquuqdiisa iyo baasaboorkiisa loogu soo cesho iyo hadda hadalku maraya TV-ga tuugana waa nagii ka daawanay dhowr maalmood ka hor documentkaas TV-ga iyo wargeysyada dalka Norway dhamaantood waxay isku dayeen inay la hadlaan oo jawaab ay ka helaan wasaaradda arrimaha socdaalka iyo jinsiyadda iyo wasiirkeega intuba waxay diideen inay kumaad ka bixiyaan wali waan xanibanahay shaqadaydii iyo xuquuqdaydii wali ma haystay 2 bilood in gaadhaysa jeebkayga baan ka duulaa waana dadaalayaa maxaa yeelay arintu mahad maaha way ka weyn tahay waxa loo socdaa jaani badan iyo si qaldan in maxay ahayd dadka loo xukumo anuguna waxaan u dagaalamayaa xuquuqda iyo qawaaniinta Europe iyo internationalku waxay dhigayaan oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay u dagaalamayaa on dhigi maxay ahayd maal iyo fikri iyo muruq baan gelinayaa marka hadda rajo fiican baanu qabnaa jawaabna waa ka sugaynaa 21 maalmood gudahood in ay wasaaradda socdaalku war khayr qaba ay keento ay ka jawaabto arinta haday diidana racfaankii godkii waa banaan yahay sanadka dib maxkamadda waa la aaday hadayba ka soo horeeyeen soo hormarin dadaalka waa wadnaa dadaalkaasina mahadun ma ahina guulo badan baan soo haynay saad la socotaan waxa weey walaalayaal waxaan ku dadaalaynaa xuquuqda gaar ahaan waxa la yirgeelo waa la wada jirtaa
waana la kala jirtaa. anagu waxaan u dadaalaynaa geela waan la jirnaa ajaanibka dalka Norway jooga, laakiin hashayni maadeeqay Soomaaliyeed ayaan anagu difaacanaynaa anagoo ku jirna ajaanibka kale ee dalka degan. saad la socotaan xisbiyadu mooshin bay soo gudbiyeen kadib markaan dadaalo badan muujinay. mooshinkaas oo hadda guul ku dhow ay isku wada raaceen dhammaan, xitaa Arbeys Partigii ay ku maqnaa fikir 2 usbuuc hadda waxay go'aansadeen inay taageeraan mooshinka oo ah in maxkamaddu dadka baasaboorada iyo sharciyada ay ka qaato. taasina waxaanu qabnaa haddaynu nahnay ururka Anna Rangsborgere uu mahad kamid yahay iyo ajaanibka kale dalka ku nool ee Soomaalidu xitaa kamid tahay. waxaanu ku faraxnay 2 maalmood ka hor hadalkii ka soo baxay afayeenka xisbiga Arbeys Party Mr Lovos oo dhahay Arbeys Party waxay ku biyashatay ayna raacday mooshinka xisbiyada keenay oo xisbigii keenay mooshinkaas uu yahay SB, gaar ahaan labada wiilka iyo marwada la yiraahdo Heike Holmos iyo Karina Andersson. labada qof wayna la dadaaleen xuquuqda bini'aadanka ee ajaanibkana way ku dadaaleen. mooshinkaasi wuxuu ku saleysan yahay in qofka xuquuqdiisa iyo wuxuu xaq leeyahay la dhowro. haddaan sii galo moshinku wuxuu yahay waxa weey waxa uu xuquuq siinaya qofka lagu soo oogay dacwadda. sida hadda aanu ogeyn waxay ahayd UDA-da amba UNE-da labada hay'adood oo wada shaqeeya, inkastay dhahaan UNE way madax bannaan tahay. anagu ma qabno fikirkaas maxaa yeelay mishaarka waxa siiya UDA-da iyo wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadda. marka qofkii shaqo geliyo baa kolley kugu yeelanaya afeen badan. taasaan aaminsanahay xitaa laan infoga waxa la dhahay xogta Soomaaliya iyo dawaylka Afrika ka keena iyada qudadeedu waa sida UNE-ga mishaarka waxa siiya UDA-da. marka waxa weey walaalayaal ta waxay noqonaysaa aniguna dacwad baan kugu soo oogay haddana waan ku xukumay. cadaaladna maaha, cadaaladana way ka fog tahay. taas awgeed bu mooshinka markaan doodo badan ka dhalinay laga keenay oo la yiri war dadkii dacwadda ku soo oogay ma xukumi karaan dadka غير المعقول bay noqonaysaa. marka maxkamadda ayaa hadda badi ay soo raaceen xildhibaanadu 169 xildhibaan mudane ka kooban waxay go'aamiyeen hadda bisha 6deeda ayuu qalinka ku dhici doonaa hadduu Ilaahay idmo bisha Abriil 6deeda. marka waxayna isku raaceen in awoodda laga qaado UDA-da oo maxkamaddu sida dambiilayaasha ay dacwadda qaado iyadu si madax bannaan. marka taas waxa u baaqanaysa qofkii maskiinka ahaa ee xitaa afka Norwegian ka garanayn xuquuq badan buu yeelanayaa, waayo qareen baa loo qabanayaa, kharash badanna kama baxay. mahad lacag 300,000 kor u dhaaftay baa ka baxday. hadda xitaa dacwadii la iga badiyay 100,000 baa isugaya oo miiska ay saaran oo inaan bixiyaa kadib racfaanka haddii aan ku guul dareysto racfaanka. laakiin insha Allah guushu way dhowdahay inaan lacagta bixiyo uma maleynay inaan bixin doono maadaama aan isku hubo inaan guuleysan doono. laakiin waqti baa inta u dhaxeeya, waqtigaasina juhdi badan buu baahan nolol maalmeedkii bay hor yaala wixii aan urursado dhanbaan isu difaacaya. laakiin waxaan nuxurku uu yahay waxaan ka dagaalamayna waxay ahayd dadka ajaanibka ee taagta yar leh ay dhaqaata iyo dadka aan shaqeyn iyo dadka aan maxay ahayd afka garanayn waa inay xuquuq badan helaan. waxa la yiraahdaa red secret maadaama uu booliiska iyo UDA-du dhinac maray inay iyaguna xukumaan ma aha baan dhahnay. taana wayna la qaateen dhammaan mudanayaasha sharafta leh ee dalka Norway 169 ka kooban. maxkamadaasi markaas waxa dhici doonta qofka in uu lawyer qabsado saxon kosnigan buu bixinaya hadii laga raayo. macnaha haduu guul dareysto ayaan u jeedaa. hadii uu guuleysto waxba ma soo jeefkiisa kama bixinayo waa loo dagaalamay xuquuq badan buu sidaa ku yeelanaya. marka guulo badan baan soo hoynay sidaa ula socotay shakhsiyan taydeeda haddaan ku laabto xisbiga ku araf ee gobolkan ka yimid Hedmark way taageereen oo maxay ahayd xalay maayna habeen hore ayay ugu taageereen jaraydka Hamar ka soo baxa adiga la socda ku araf shan performahat waxay ku dagaalamayaan bay ku dadaalayaan si aan u helo sharcigaygii iyo noloshaydii aan hadda ka hor aan iska lahaa. marka way ku maadsan yihiin in xisbiga SB isagoo qudhidiisu waa taageersan yahay hadduu rabbi ku roon yahay Arbeys Party-ga maxay ahayd gobolkaas isla Hedmarka isaguna way taageersan yahay. walxamdulillah guulo badan baan soo hoynay. waxa la yiri ilmaha musay waxa raamsta hooyadooda ma tabto waa inaan qaylada gaarsiinaa meel walba duniduna na aragtaa. dalka Norway run ahaantii aanu nin ku koray baan ahay cunug yar baanan haa weligay maan arag
wax arrimahan dhacaya sanadadan dambe dalka Norway inuu ka dhaco waxaan la yaabanahay oo argagaxan ka qaaday dadka Norwegianku waa dad qabow waa dad martingelin wanaagsan leh waa dad maxaa la yiraahdaa ajaanibka sharfa laakiin waqtigan dambe dabayl waxaa timid Europe ta dhanba populist hayre la yiraahdo amba maxaa la yiraahdaa garabka midig ee xag jirka ah oo dadkii xogaha ajaanibkii iska yar dhibaya marka hadduu rabbi ku roon yahay doorashada soo socotana dadka waxaan leeyahay wixii roon u codeeya mahad dad badan waxay yiraahdaan in mahad baashan ay ku dhacdo waxay ahayd positive sababtoo ah mahad waa nin dagaalamay oo isdifaacay oo aan qarsan wixiisa maxkamad tagay qarash ku baxshay haddii uu ahaa lahaa dadka kale caadiga lagu bilaabi lahaa Soomaalida kale waxaa dhici lahayd in ay wada dhuntaan ama aysan xitaa dadka u sheegin dhibaatada haysato arintaas maxaad ka leedahay wallahi waata hore loo yiri xanuunka aad qarsatid waa ku qarsadaa anu qofka baxsanaya fulaan u arkaa Soomaalidana fula ka reeban hadday dagaal tahay hadday cilmi tahay hadday wax walba tahay waa dhaqankan ku koray qof Soomaaliya ma cabsado alla umu ka cabsadaa qofku hadduu irid baneeyana de irid buu furay oo dadkii baa lagu soo dhaxdaadanahay anigu waxaan dagaalka halkayga uga qaadeen gaashaanka u qaatay mahad waa nin wax bartay mahad waa nin opportunity badan haysta laakiin mahad wuxuu ka fikiraa maatida Soomaaliyeed ubadka yaryar ee xaqdarrada lagu xukumayo ee dembigii raalahaw ee dembigii waalidka uu galay lagu xukumayo hadda arintaasna way ka noqdeen saa ula socto mooshinka iyo la socdaa qofka aabihii beenu sheegay ilmaha yar sharciga waa in automatically iska haystaa lagama celin karo awal waa laga celin karay waa guulaha aan soo hoynay bay kamid tahay marka anigu waxaan qabaa qof kasta oo Soomaaliyeed oo dhibtan soo wajahdo inuu qareen qabsado dawladda kharash bay ku tahay qof kasta hadduu qareen qabsado way ka daalaysaa marka waxa weey walaalayaal aan xog yeelano han is ogaano ha iska warhayno nin kasto la soo weerarana tala xiraadsado oo inuu baxsan meesha aad u baxsanaysa hadaad Canada tahay haday Mareykan tahay haday Australia tahay haday New Zealand tahay haday Europe ta kala tahay nin xadun baale waa baddu way wada dhanaan tahay hadaan xamar ka dhadhamiyo hadaan Europe ka dhadhamiyo ragum baa iska leh marka meeshaadaas oo iska bismiilaysatid oo istifaacid calaf hadaad ku leedahayna tay waa joogi hadii kalena dadul qaniyaynu leenahay Ilaahay un baan baryaynaa oo nabad inuu nooga dhigo oo maskaxdeena iyo wanaageena aan ka shaqeyno horumar annagaaba dadka qaabili doona 10 sano kadib aanu taasaan qabaa mahad waxa tahay nin aad iyo aad u fircoon oo dadka ka dhex muuqdo mis leedahay haddii arintan aad dhinaca kaaga dhacdo oo sharcigaaga lagu soo celiyo baasaboorkaaga waxaad noqon doontaa siyaasiyiinta matali doona Soomaalida dalkan ku nool horta salaad walba waqtigeyga la tukadaa hadda waran baa igu taagan actually waranka inaan iska siibo yaan rabaa oo hadafkeyga koobaad kadibna de Soomaalida u taala inay hawsha ay dirsato oo hadday qof mudan ay arkaan de iyaga insha Allah ka warsugi doonaa ugu dambeyn maxaad kula tali lahayd dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway ama qurbaha oo dhan hadii ahayd waxaan walaalkay Maxamuudow dadka kula talin lahaa qurbaha jooga horta kuwa qurbaha aan u soo laabto laakiin kuwa Norway bal horta waxaan ka dhaho dadka Norway jooga waa dad tiro badan Pakistaanida waynu ka badanahay Pakistaanida 3 xildhibaan baa u fadhiyo golaha baarlamaanka innaga oo ka tiro badan hal xildhibaan milyan dadku haddii uu muwaafaqada beelo tayadooda quality-ga dhimata nasiib darro dadkayga Soomaaliyeed waxay fahmi laayihiin qurbe inaan joogno malaw waxay u haystaan inaan xamar joogno inaan waqooyi joogno iyo inaan bari joogno iyo inaan baydhabo joogno dadku waxay jaaliyadaha kala badan oo kala duwan baa la sameeyay haddii la kala qaybtamana de sidii ulihii bay noqonayaan halba ulba la jabin si fudud laakiin anagu waxaan ku talin lahaa warbalulaha isku dunno oo meel mid ah tay dhigno oo Soomaali midayno awood han yeelana oo hal laga tago khilaafaadkii ahaa 25 sano ka hor oo aqligu ha shaqeeyo saliimka culimadu ha shaqeyso dhalintu ha shaqeyso hooyooyinkii gabdhuhu ha isku keenaan mala rageed waa mudciye afkeed bay Soomaalida dadka baadiyaha jooga ay dhahaan kowdi malaha isku keenno war han istifaacno oo baaqaygu maanta wuxuu yahay
waxaanu samaysano sida ururkaas maanta aan midka ka hayn ee abaaraha guddiga abaaraha hanu midoon oo guddi xalinta khilaafaadka iyo dhibta Soomaaliyeed ee dalka Norway haynu samayno guddigaas oo ka kooban Soomaaliyo idil waxaan taa u leeyahay hadafkeedu uu yahay walaal dhibaatooyin badan baa meesha jira oo sharciyada uun hayn dhibaatooyinkaasina waxaa kamid ah 7 dhibaato oo Soomaalida haystay oo qodobood ayaan intan ku qoray waan la qaybtamay dadka walaalahay laakiin kow waxaan leeyahay guddi caynkaas in la sameeyo oo na difaaca oo xogteena u geeya iyo dhibaatadeena tabashadeena u geeya xisbi kasto Norwegian la hor fadhiista 8 xisbi dalka ka jira qodobadan yaan anigu rabaa Soomaalida intay guddi samayso waa talada idaacadaha mahad ahaan in ay ula hortagto xisbi kasto siyaasadeed ka iska dhax aragto inuu danaheega difaacayo u codayso ay soo saarto hadhow toolana ay ka uga fadhiisatay tiraa war waxa baan kuugu codeeyay waxaygi dantaydii ma dhowraysa interestigay adduunku waa interest marka qodobadani waxay kala yihiin waa la socota waa bully problem waxa la yiraahdo amba guri markuu qofka ruuxa Soomaaliga ee magaca Soomaaliyeed wata amba hayb Soomaaliyeed ka soo jeedo dalka Norway way ku adag tahay inuu guri helo waa la wada ogsoon yahay waa in xisbigaas lala fadhiyo maalintaas laga hadlo arrimaha bully problemka communal bullyga inta dhan maxaad ka qaban kartaa qodobka labaad waxa weeye Banavan problem Banavanka ubadkeena isfaham la'aan ba meesha jirta Banavanku waxa weeye hay'ad ubadka daryeelsha laakiin dadkeeni sasbay kala qabaan in la isfahamsiyo la isku soo dhaweeyo oo xitaa la xisaabtamo Banavanka gardarada ubadka ku qaadanay qaarkood 3 opolsilaatay iyo boosetingsalaatay iyo staatsbuskaps special waa in laga hadla Soomaalidu ma aha la jiifiya banaan la joojiya banaan waa in loo hadla war qofka hadda xaq la siiyay sharci la siiyay waa in sharcigiisa la dhowraa waa in Soomaalidu ay weydiisaa arrimaha sharciga Soomaalida 90% dadka la haysta ajaanibka waa Soomaali sidee bay sidan u noqotay maxaa keenay waa in la xisaabtamo xisbiyada siyaasadeed ee baarlamaanka fadhiya xisbiga dawladda doontid ee ka dhaxarigtay interestigaaga qodobka afraad wuxuu yahay yob problemer anigu Soomaali haddaan xitaa wax bartay way igu adag tahay shaqo inaan helo marka la igu compare gareeyaan bal la barbar dhigo dadka kale ajaanibka ee dalkan degan konton jeer aniga kula hadlay konton jeer baan CV diray ka hor intaan shaqada aan hadahayay helin marka bal maxay kula tahay qofaan iskuul dhigan ee jaamacad ka soo bixin jaaniskiisu waa yar yahay inuu shaqo helo taana waa in xisbiyada la horgeeyaa waa qodobka afraad qodobka shanaad waa iskuulka quality school ubadka si loo helo lecture help umrooda meel lecture help stay plus la isku keeno Soomaalida sida Sri Lanka waxay leeyihiin Sunday school wax la yiraahdo dawladana maal gelisa dadkeena Soomaaliyeed waa in loo sameeyaa meel ay hoos tagaan ay haday doonto masaajidka ahaato haday doonto meel lagu heshiiyo ahaato laakiin waa inay helaan meel aqoonyahanka Soomaaliyeed student foreigning u yimaado ay ubadka wax u baraan oo ka faa'iideystaan ubadku inay wax bartaan ma fahmaysaa Sri Lanka waxay leeyihiin Sunday school wax la yiraahdo oo professoro UK jooga ay ka yimaadaan every weekend maxay Ingiriiska ayna u dhigaan dhalintooda Sri Lanka sida quality u yeeshaan amba tayo marka waxa loo baahan yahay in taa la sameeyo hooyo waxa jirta iyadu academic hayno ilmaheegu xaq u leeyahay inuu wax barto academic noqdo kuwaana waa inaan ka fikirno oo dawladda xisbiyada la hor fadhiisano waa qodobka shanaad qodobka lixaadna wuxuu yahay helsa walla socotaan dawadu waa lacag qofka buka mudnaan baa la kala siiyaa hadduu cadaan yahay hadii kale taas waxaan u leeyahay dad waxa jira dawada laga jeclaado ay Soomaalidu kamid tahay arrimaha in laga hadlo weey arrimahaasina waa problem kale oo Soomaaliya ajaanib haysta marka waxa loo baahan yahay la xisaabtan daba waa qodobka lixaad taas halkaas aan kaga beeraya 7 media discriminating wala socota wixii xunba Soomaali baa la baleeraa magaca Soomaaliyeed waa lagu dheelo si kasta laga yeelaa taasna inaan kala xisaabtano meediyaasha xisbiyada iyo xukuma ilayna xisbiyada waa in loo sheegaa si ay saas waa in laga daayaa oo la
idhaahdo taasi nagama qabato. Xitaa Soomaalida hadday mudaharaadayso TV-yadu ma yimaadaan inaad la socotid mooyee. Taasna de waa xaqdarro, waa discriminating. xitaa qodobka 7 waxaa hoos imanaya xadgudubka iyo haybsooca lagu hayo Soomaalida ajaanibka kale la mid tahay. dhibtaana lagu hayo ajaanibiyada kale sida Pakistaaniga iyo kuwa kale teena ka daran. marka in dadka amba si loo wada eego amba nalaga daayade bilaa caleek iyaan in rabnaa ay Soomaalidu la xisaabtanto dalka Norway. marka guddiga xaquudirirka amba khilaafaadka ee Soomaaliyeed in lagu dhawaaqaan jecelahay anu kulleeyda waxaan ka hay labayk yani mustacid baan ka hay inaan ka qayb qaato oo taladayda ka dhibto. laakiin waa la iga weyn yahay odayaa jira, aabayaal baa jira, hooyooyin baa jira, in iyaguna fikirkaaga aan soo dhiibtay ay shiilaan oo kadibna wax ka dhiibtaan oo nabalamiyaan baan jecelahay. maxaa yeelay dhibaatooyin badan baan u jeedaa oo aan wajahanahay in laga ninka raguna waa inuu wax walba u fariistaa oo ka tashadaa. marka Soomaalida baaqaan u dhiibay waata kuwa dalalka kala diasporaaga dawaayilka kala degana iyagana saas leeg inay guddi caynka samaystaan waa laga maarmaan ay joojiyaan tafaraaruqa iyo wixii cunfi keeni kara. baaqaygu waa ka weey walaalahayga Soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay soo duceeyaan horta kow janno igu duceeyaan, labana hadduu Rabbi ku roon yahay inay noloshayda maalmeedku ay ii hagaagto, ay nimankaas Ilaahay indhaha iga qabto aan hayno. walaalahayga Soomaaliyeed ee dalkeenii joogana Ilaahay waxaan uga baryayaa oo uga tuugayaa inuu roob iyo nimcad iyo naxariis u siiyo oo qalbigoogana saliim ka dhigo heshiiyaan dar Allah. dhulkeenu waa qani, petrol buu leeyahay, diamond buu leeyahay, minerals buu leeyahay, malay buu leeyahay, qorax buu leeyahay, wabiyaal buu leeyahay, dhul beereed buu leeyahay. wallaahi waan ku dhaartay haddaan heshiino inaan annagu dalalka Afrikaanka aan faraha u dhigi doono oo dalkeena iska soo dhiibi doonaan sida Norway baan aaminsanahay. ooliyadeena haddii la soo saaro petrolka saliideena warbay dhaba kaliya taa Soomaaliya oo dhan dhergin karta, war Kismaayo kaliya taa Soomaaliya dhergin, Jamaame kaliya taa Soomaaliya oo dhan dhergin karta. waynu yarnahay bal haynu taranay bilaa calaykum. nimanka qoryaha sitana waxa la qoriga dhigo wiil Soomaaliyeed baa dhimanaya miiska soo fariisto. dawladana waxaan kula talinayaa dadka quality gale qabiilha u dooranayay u doorta dal jacayl, diin jacayl, aqoon iyo karti u doorta sida ku xogta maxay ku soo xusha. nimanka qoriga sitana warday kugu dhimay ka dhimay way arintu. nin Soomaaliyeed baa dhimanaya bilaa caleek duurka ma joogayno dalal dibadeed joogi maynay. war foolka maroodi ha soo hoynay, maroodigu foolka soo hoyaaba leeyahay dalkeena ha nu soo hoynay. naga day dagaalka ha soo noqono aqoonta iyo maxay ahayd kalgacalka dalka ta dalka han keenno. bilaa caleekum walaalayaal joojiya heshiiya dar alla way heshiiya naga dhax saara cunfiga musuq maasuqa dalka ka saara. war la xajeclooda intii xil haysay la xajeclooda waa xoolihiini, waa wixii waa wixii ubadkiina hantida qaranku, waa wixii qof kasta muwaadin kasta Soomaaliyeed uu leeyahay. baaqaan u diray dawladda Soomaaliyeedna waxay tahay war warqadaha soo qortaan bilaa caleekum dawlad jirta ma aha in la leeyahay qofka dhimanaya dhareerku iska duwaa ee burqadihiina difaacda. annagu haddaan Soomaali nahnay warqadaad noo soo dirtaan waa nin mahad celinay. laakiin dawladda Norway dawladaha ka mid tahay waxay leeyihiin documentka Soomaaliyeed lama ictiraafsano ma jirtaan. noo sheego dalku ma jira dhow waa hore la kala qaatay dhaha tala marka annaga inoo tala ni dooranay. laakiin waxaan nigu dardaarmaya oo nigu tuugaya oo nigu bariyaya maadaama aad majaraha noo haysaan inaad warqadahaas difaacdaan waa muhiim. hadday tayada tahay hadday Soomaali badan oo hayno xogtooda warqadaha ay keeneen Soomaaliyeed la iska diiday inaad difaacdaan baan u baahan. haddii kale xafiisyada noo banay bilaa caleekum annaga difaacanayna. wassalaamu calaykum waraxmatullaah.